waxaan ka codsanaynaa in codadkeena u gudbisiin. muddo 8 sano maysan arag wiilashooda oo ku xiran xabsi ku yaala dalka Tanzania waana taas midda markasta ay la murugoonayaan oo indhahoodana ka keenaysa ilmada waska caloolnaasanaa wax kala dhib ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax dhibaatadana bixin kara laakiin dawladda noo dadaasho intaasaan walaa codkan ku soo gabagabeynaa waa uu ku taalo weyn hooyooyin ilintu ka qubanayso aan wali wax laga qaban dhibaatada dhalaankooda haysata hadda marun waxay rajo ka qabaan in la sii daayo caruurtooda maadaama dawladdu ay horay tallaabo ugu qaaday sii deynta maxaabiis Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ku xirnaa dawladdeenu waxa weeyaan dawlad aad iyo aad shacabkeeda u daneeysa kale hadda ka hor calafaan noo gelina u maleynaa annaga laftirkeenaga meelo badan ay dadka soo fureen laakiin annaga hadda danta aan maaragtay waxa weeyaan wiilasheena waxay ku xiran yihiin dawladda Sisaani 8 sano maamul xiraayeen waa jiran yihiin waa maaragtay rafaadsan yihiin cidka warbixisay malahan cidka warqabta lama arko halba lacaga inta laga qaataan la yiraahdo waa la soo furaa mana laga soo hadla mana laga soo hadda tiib shay wada qabaan qaar lugaha ka go'ay qaar rafaadsan bishan Soomaaliyeed oo dhibaataysan la jir dilayo beeraha lagu falanayo tixgelin ay haysanin dhibaatadaas badan ay haysato dawladdu waxaan ka codsanaynaa in intay noo sare istaagto bal Tanzania intay tagto bal war u nooga keento wixii dhintana wayba dhinteene wixii nool nooga soo caymiso dawladdu intaasaan ka codsanaynaa waxa ay sheegay maqan wiilal Soomaaliyeed maadaama ay walaalay wada yihiin fariid darihays 5 wiil meel ku xiran 8 mid kamid ah lugta ka go'an dariyaal xumo uga go'an iyo waxay ayaga ku sameeyay beeray ku fashan garaafa soo gaartay oo fashfashan lugta ka jareen walaalkay Allah xiran waxa la yiraahdaa Cabdiwaax Macalin Cabdiraxmaan Shaqmar walaalkay wuxuu ii sheegay inuu tiib shahaado ay jir dileen waxaan sayn oo daryeel haysan oo cunno haysan oo beeraha lagu fasho inay wax kasta kula kacana waa nima waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh ee soo saaraha intii qof islaam dawladdaas kamida oo wiilasha Soomaaliyeed waa walaalahay ayaa ka dhanay in inta u gurmadaan ay soo daayaan aan jeclahay xabsiga ay ku jiraan kama helaan xuquuq maxaabiis oo dhameystiran taasoo jirtana waxa loo sii geystaa tacadiyo ka dhana xuquuqul insaanka sida uu sharaxayo Maxamed oo dhawaan ka soo baxay xabsiga Tanzania oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku jiraan meesha run ahaantii anaka 2 bilood aan ku xirnay 2 bilood waxay nala ahayd 2 sano iyo ka badan nala ahayd waxa malay kartaa qof 8 sano meesha ku xirnay meesha rafaad badan ka jira dhankan raashinka haato dhanka jiifka haato nolosha dhan meesha beeraha la isku falaa subax la soo galabta la iskeenaa beeraha la isku falaa raashinka waqti ka waqti waxa lagu keenaa wax ugaali wax la hayo mahraga meesha laga isticmaalaa soor waay marka meesha xaalado badan ka jira run ahaantii dadkaas hadaa sheekaysanayna kulli asxaabta Soomaalida hadaa sheekaysanayna cidna oo maqnaan ceel loo maqadneen wax oo Ilaahay inuu ku soo gaaro maahane meeshaasna meel loo sii noolaa kara ma ahan run ahaantii marka cid alaalay cidii Soomaalinimo dhiigeeda ku jirta waxaan ka codsanayaa dadka inay wax u qabtaan Soomaaliyeed marka meesha waxa ka jira xaalado badan ka jira run ahaantii oodan meeshan ku sheegi karin marka cid alaalay cidii dhiig Soomaaliyeed ku jira inay wax u qabtaan oo dadkaasi u tagaan runtii marka la sheegaysay ay ka caloosha iska xanuunay waxay ku leeyihiin waa qoosnaan ka waraja dhigni ku leeyihiin waa dad badan si shalas laga soo deeyay dad badan Itoobiya laga soo deeyay laakiin Tanzania waxa ilaa hadda loo taglayo maxaabiista laga soo deeyay aduna ma garanay aniga laakiin waana meesha ugu xun waa Tanzania run ahaantii laga hadlo inkastoo dareenka ay qabaan uu yahay mid muruga leh laxawguna ku badan yahay waalidka nubadkoodu maqan yahay haddana madaxda dawladda ay sheegayaan inay ka sugayaan inay suura galiyaan sii deynta wiilashooda muddada ku siman 8 sano ku dhibaataysan xabsiga ku yaala dalka Tanzania walaalkan wuxuu ka tagay caruur badan caruurtiisa qaangaar ku dhowdahay anaka waa curadka hooyadeena aabeen waa ninka ku tashaneen uu naga maqan yahay muddo 8 sano xiran yahay markii ugu dambeysay oo warkiisna ugu dambeysay soo dhibaataysan oo jiran xabsi oo ku xirnaa 3 nin oo Soomaali ah ku dhimatay tiibish darteed ku dhimatay asagan oo jiran yahay ayaa noogu war dambeysay wuxuu yiri meeshan tacadi dhibaato badan ay ugu haysato waxna uma qaban karnaa naka dawladda Soomaaliya dawladda ka hor aan la hadalna ma aan arkin hadda dawladda Soomaaliya waxa uga jeedaa dhaqdhaqaaq badan oo ay u sameynayso wiilasha Soomaaliyeed
dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaare wasiirada inta Soomaali ah oo dhiig Soomaaliyeed ku jirto in wiilasha Soomaaliyeed ay la hadlaan wadanka Tanzania ay la hadlaan. Tanzania waa wadan aad iyo aad u xun, waa wadan tacaddi badan. marka waxaan kala hadlaa dowladda Soomaaliyeed inuu kala hadlaa dowladda Soomaaliyeed wiilashaas la soo hadlaan ay ka daayaan meeshaas. madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa walaalo Soomaaliyeed anahay walaaleen way xorayeen dadkeen way xorayeen inay kala hadlaan dowladda Soomaaliyeed ka codsanaynaa. adiga waxaan ka codsanaynaa in codadkeena u gudbisiin meel kasta oo adduunka aan joogno Soomaali ay joogto ay ka codsadaan. واسك على غناسنا وعقل إلهي سبحانه وتعالى يا واحد بعتنا بحين كرا لكن دولتها نود داشو انت صاولا عادك نكسوق من قبيلنا مدحونا وحن قعدنا ولا لا Soomaaliyeed anahay walaaleen way xorayeen dadkeen way xorayeen inay kala hadlaan dowladda Soomaaliyeed ka codsanaynaa. adiga waxaan ka codsanaynaa in codadkeena u gudbisiin. muddo 8 sano ah maysan arag wiilashooda oo ku xiran xabsi ku yaala dalka Tanzania, waana taas midda markasta ay la murugoonayaan oo indhahoodana ka keenaysa ilmada. واسك على غناسنا وعقل إلهي سبحانه وتعالى يا واحد بعتنا بحين كرا لكن دولتها نود داشو انت صاولا عادك نكسوق من قبيلنا. waa uur ku taalo weyn hooyooyin ilintu ka qubanayso aan weli wax laga qaban dhibaatada dhallaankooda haysata. hadda marun waxay rajo ka qabaan in la sii daayo caruurtooda maadaama dawladdu ay horay tallaabo ugu qaaday sii deynta maxaabiis Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ku xirnaa. dowladdeenu waxa weeyaan dowlad aad iyo aad shacabkeeda u daneydsa. kallay hadda ka hor calafaan noo gelina u malayna annaga laftirkeennaga meelo badan ay dadka soo fureen laakiin annaga hadda danta aan maaragtay waxa weeyaan wiilasheeni waxay ku xiran yihiin dowladda Tanzania 8 sano ay maamul xiraayeen waa jiran yihiin waa maaragtay rafaadsan yihiin cid ka warbixisay ma lahan cid ka warqabta lama arko halba lacaga intana laga qaataan la yiraahdo waa la soo furaa mana lagaga soo hadla mana laga soo hadda tiib shay wada qabaan qaar lugaha ka go'ay qaar rafaadsan wiilasha Soomaaliyeed oo dhibaataysan la jir dilayo beeraha lagu falanayo tixgelin ay haysanin dhibaatadaas badan ay haysato. dowladdu waxaan ka codsanaynaa inay intay noo sare istaagto bal Tanzania intay tagto bal war u nooga keento wixii dhintana wayba dhinteen wixii nool nooga soo caymiso. dowladdu intaas aan ka codsanaynaa. waxa ay sheegay maqan wiilal Soomaaliyeed maadaama ay walaalahooda yihiin xoriyad darihayso 5 wiil meel ku xiran 8 mid kamid ah lugta ka go'aandariyaal xumo uga go'an iyo waxay ayaga ku sameeyay beere ku fashan garaafa soo gaartay oo fashfashay lugta ka jareen walaalkay Allah xiran waxa la yiraahdaa Cabduwaax Macalin Cabdiraxmaan Shaqmar walaalkay wuxuu ii sheegay inuu tiib shahaado ay jir dileen oo xanuunsan oo daryeelaysan oo cunahaysan oo beeraha lagu fasho inay wax kasta kula kacana waa nima. waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh ra'iisul wasaaraha intii qof islaam dowladdaas kamid ah oo wiilasha Soomaaliyeed waa walaalahay ayaga dhanay in inta u gurmadaan ay soo daayaan aan jeclahay. xabsiga ay ku jiraan kama helaan xuquuq maxaabiis oo dhameystiran, taasoo jirtana waxa loo sii geystaa tacadiyo ka dhana xuquuqul insaanka sida uu sharaxayo Maxamed oo dhawaan ka soo baxay xabsiga Tanzania oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku jiraan. meesha run ahaantii anaka 2 bilood ku xirnay 2 bilood waxay nala ahayd 2 sano iyo ka badan nala ahayd. waxaa malay kartaa qof 8 sano meesha ku xirnaa. meesha rafaad badan ka jira dhankan raashinka haato dhanka jiifka haato nolosha dhan. meesha beeraha la isku falaa subax wala sooda galabta la iskeenaa beeraha la isku falaa raashinka waqti ka waqti waxa lagu keenaa wax ugaali wax la hayo mahraga meesha laga isticmaalaa soor waay. marka meesha xaalado badan ka jira run ahaantii dadkaas hadaa sheekaysanayna kulli asxaabta Soomaalida hadaa sheekaysanayna cidna oo maqnaan ceel oo maqadneen wax oo Ilaahay inuu ka soo gaaro ma ahane meeshaas meel lagu sii noolaa kara ma ahan run ahaantii. marka cid Allaale cidii Soomaalinimo dhiigeeda ku jirta waxaan ka codsanayaa dadka inay wax u qabtaan Soomaaliyeed. marka meesha waxa ka jira xaalado badan ka jira run ahaantii oodan meeshan ku sheegi karin. marka cid Allaale cidii dhiig Soomaaliyeed ku jira inay wax u qabtaan oo dadkaasi u tagaan runtii marka la sheegaysid ay ka calooshaas ka xanuunay waxay ku leeyihiin waa qoosanaanka waa rajo dhignay ku leeyihiin
ودد بدنا سيشلس laga soo deeyay dad badan Ethiopia laga soo deeyay laakiin Tanzania waxa ilaa hadda loo taglayo maxaabiista laga soo deeyay I don't know ma garanay aniga laakiin waana meesha ugu xun waa Tanzania run ahaantii laga hadlo inkastoo dareenka ay qabaan uu yahay mid muruga leh laxawguna ku badan yahay waalidka nubadkoodu maqan yahay haddana madaxda dawladda ayay sheegayaan inay ka sugayaan inay suura galiyaan sii deynta wiilashooda muddada ku siman 8 sano ku dhibaataysan xabsiga ku yaala dalka Tanzania walaalkan wuxuu ka tagay caruur badan caruurtiisa qaangaar ku dhowdahay anaka waa curadka hooyadana aabeen waa ninka ku tashanayna uu naga maqan yahay muddo 8 sano xiran yahay markii ugu dambeysay oo warkiisna ugu dambeysay soo dhibaataysan oo jiran xabsi oo ku xirnaa 3 nin oo Soomaali ah ku dhimatay tiibish darteed ku dhimatay asagan oo jiran yahay ayaa noogu war dambeysay wuxuu yiri meeshan tacadi dhibaato badan ay ugu haysato waxna uma qaban karnaa naka dawladda Soomaaliya dawladda ka hor aan la hadalna ma aan arkin hadda dawladda Soomaaliya waxa uga jeedaa yacan dhaqdhaqaaq badan ay u sameynayso wiilasha Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada inta Soomaali ah oo dhiig Soomaaliyeed ku jirto inay wiilasha Soomaaliyeed ay la hadlaan wadanka Tanzania ay la hadlaan Tanzania waa wadan aad iyo aad u xun waa wadan tacadi badan marka waxaan kala hadlaa dawladda Soomaaliyeed inay kala hadlaan dawladda Soomaaliyeed wiilasha la soo hadlaan ay ka daayaan maanta madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa walaalo Soomaaliyeed walaaleen way xoreyeen kan way xoreyeen inay kala hadlaan dawladda Soomaaliyeed ka codsanaynaa adiga waxaan ka codsanaynaa in codadkeena u gudbisiin meel kasta oo adduunka aan joogno Soomaali ay joogto ay ka codsadaan waska caloolnaasana wax kala dhib ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa wax dhibaatadana bixin kara laakiin dawladda noo dadaasho inta saan walaal adkan soo gabagabeena